gudoomiyaha xisbiga wadaniga dalkani Jarmalka mudane Xuseen Abiib oo la soo xidhiidhay telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV xarunta uu ku leeyahay dalkani Jarmalka ayaa warbixin kooban waxa uu ka bixiyay sida uu arko doorashadii dhawaan ka dhacday Jamhuuriyadda Somaliland ee golayaasha deegaanka Somaliland dimuqraadiyaddu saad ogtiin buu inagu cusub tahay dadku waxay qaateen qarniyaal inaguna muddo yar oo kooban baynu meel wanaagsan aynu marayna كل وحوي نجح خدميان ومعناها ودعي كران إني مارتي ضدكوا أي حقوقا عويان. دنك كلنا أحمد هذا وكمدا قويهنك. غير سوماليلاند iyagu ku nool dalkani Jarmalka ayaa isaguna xiriir ula soo sameeyay telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV. uu soo jeediyay siyaasiyiinta reer Somaliland in ay mar walba ka shaqeeyaan danta guud isla markaana ay ahaato ammaanku hadafka koobaad ee laga duulayo. waxaan anu ummadda reer Somaliland dhamaantood waan salaamayaa meel kasta ay joogaan waxaan u dirayaa ummadda reer Somaliland ee wadanka gudaheeda joogta inayna inta yareenu dhadhabanay aan inaga burburin oo kursi loo burburin waxaan leenahay qacmaha la soo qabsado kii maanta waayay inuu tadamba hela laga yaabaa inuu walaalkiis u taaniyeeyo